kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa la dhiyoofa cusub abuuray waxaa mar kale tan iyo dagaalkii qabooba isku arkay dalka dhaca geeska Afrika quwadaha caalamka ee bari iyo galbeed waxaa marin biyoodkan la ceegaya khayraadka farta wada gelin doona dalalka kulaala badweynta Hindiya iyo kuwa Khaliijka waxaa la isku adeegsan doonaa kaarar siyaasadeed oo laga soo baandheeyay Washington, London, Moscow, Oslo, Roma iyo Bajinta dihin ciyaaraha waxa fududeeyalka wadaadada Carabta xukuma waxayna adeegsanayaan hogaamiyaasha geeska dhammaan dadaaladan waa kuwa caalami oo ku saabsan sidii Muqdisho iyo mudnaanteeda dhuleed siyaasad ahaan loo hanan lahaa dooxa waa hormuudka dalalka dilaala siyaasadda islaamka waa dal yar oo badahaan ka yar gobol kasta oo Soomaaliya ah marka laga tago gobol caasimadeedka Banaadir kaas oo isna 5 jeer ka dad badan sida la qiyaasayo Qatar iyo amiirada xukuma ayaa Soomaalida iyo doorashadeeda ku lahayd dhextaal aan ka dhex bixin 10kii sano ee ugu dambeeyay toddobaadkan waxa sii xoogaysay safarada xubno ka socda dawladda Qatar ay ku tagayaan Soomaaliya xilli dalka looga diyaar garoobayo ololaha doorashooyinka dooxa waxa la rumaysan yahay inay saameyn lahayd laba doorasho oo kala ahayd 2012 iyo 2017 labada jeerba door xoogan ayaa la tiriyaa inay ku lahayd soo bixidii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaa la aayisan yahay in dhaqaale ku taageertay loolankoodii doorashada toddobaadkan waxaa la ogaaday in amiirka xukuumadda dalka Qatar wakiil gaar ah u magacaabay Soomaaliya waxaa isna horay Soomaaliya u joogay safiir idman oo ka socda dooxa safiirka Qatar ee Nairobi ku sugan waxa uu leeyahay saameyn ku wajahan arrinta doorashooyinka Soomaaliya safarkii ugu horeeyay ergeyga gaarka ah ee amiirka Qatar u qaabilsan Soomaaliya ahna u qaybsamaha dooxa ee arrimaha dalalka ay ka jiraan dhaqaaqyada argagixiso iyo xalinta isku dhacyada waxa uu ka soo bilaabay Hargeysa Muqdisho ayuu tagay wafdi ka socda dawladda ayay kulmeen gaar ahaan dhammaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka ee Soomaaliya sida lagu sheegay baraha gaarka ee ay adeegsadaan hay'adaha dawladda shaki ma leh in doorashada dhow Soomaaliya ay noqonayso mid ugu badan ee dhaqaale isku adeegsadaan dawladaha Carabta ee loolamaya balse imaanshihii aqalka cad ee John Biden waxa uu abuuray khalkhal gudahooda ah Biden wuxuu muujinayaa degniino ku wataan in Soomaaliya iyagoo wax laga weydiinayo dadka la socda dhaqaaqyada Carabta ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxay hoosta ka xariiqayaan in dooxa ciyaarayso hadda sida ay saameyn ugu yeelan lahayd dhammaan dhinacyada tartamaya qaybo badan oo kamid ah dooxa waxay xoogga saaraysaa inay mar kale lagdin siyaasadeed gudaha Soomaaliya kula gasho Imaaraadka Carabta waxa ay kaloo sahaynteeda u gudbinaysaa Hargeysa oo la rumaysan yahay inay Abu Dhabi ku xoog badan tahay laakiin Qatar hadda albaabkaas way garaacday mucaaradka ayay doonaysaa inay dhexda u gasho xilligan si ayna qorshahooda Soomaaliya ugala kulmin duulaal ballaaran oo uga imaanaya mucaaradka oo bilihii ugu dambeysay si weyn magaceeda looga maqlayay ila amni waxay xaqiijinayaan inay doonayso dooxa inay meesha ka saarto dhammaan ficilada maalmihii u dambeeyay ay muujiyeen saraakiil hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo doonaya inay qayb ka noqdaan loolanka siyaasadda gudaha Soomaaliya ujeedada kale ee Qatar waa inay doonayso inay Ankara ku qanciso in saameynteeda Soomaaliya xilligan ay dib u dhisayso ay tahay in Ankara iyo dooxa wada jir u noqdaan kuwa iskaashada iyadoo hawlaha doorashada ay qaabilsan tahay Qatar Somaliland inkastoo ay u xiran tahay Imaaraadka haddana dooxa waxa ay day fariin ah waan nimid way fafaalo cusub oo Somaliland ka dhigaya mid muhiimad weyn ugu fadhida gobolka oo dhan loolanka Carabta ee dhaqaale ku bixinta Soomaaliya gaar ahaan Imaaraadka Carabta iyo dooxa ujeedada rasmiga waa inay xulafo dhow la ahaadaan dalkan Soomaaliya oo ku yaala aag muhiim ah Imaaraadku waxa ay joogitaan ku leeyihiin labada maamul ee Puntland iyo Somaliland haddana dooxo waxay doonaysaa inay Hargeysa si xoogan ku gasho iyadoo hore Turkiguna u haystay Muqdisho safarka cusub ee mudlaq ee Hargeysa iyo Muqdisho gaar ahaan kan Hargeysa waxa la rumaysan yahay inuu faramalan kala soo noqday markii hoggaanka Somaliland ay ka biyo diideen mashaariic ay sheegeen inay ka fulinayaan halkaas
balse Hargeysa ayaa u aragta mashaariicdaasi dana siyaasadeed oo Somaliland doorashada qabsanaysa dhexda u gelin doona isduudooyin aysan mahadin doonin. Qatar ayaa la sheegay in Muqdisho iyo Hargeysa kadib ay u jihaysan doonto magaalada Kismaayo oo ay u arkaan aag saddexaad oo juqraafi ahaan muhiim u ah danaha wadaadada khamiisyada siyaasadda ku dilaalay Carbeed.